dagaal aad u qaraara u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo markaasi dowladda federaalka ayaa xilligan wuxuu ka socdaa magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo la weeraray guri uu deganaa ra-iisul wasaare hore xasan cali khayre oo u dhow aagga madaxtooyada soomaaliya. xiisada ayaa markaan u muuqata inay markaasi dhinacaya dagaal u jihaysatay kadib markii dowladda federaalka ay ciidamo badan geysay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho. hub iyo dabaabaad uu wato ra-iisul wasaare hore xasan cali khayre ayaa galabnimadii hore maanta lagu arkayay aagga madaxtooyada soomaaliya. kadib waxaa markaasi halkaasi ka qaraxay dagaal u dhexeeya xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ciidamo taabasan iyo ciidamo markaasi ka socda dhanka dowladda federaalk soomaaliya. lama oga khasaaraha rasmiga ee markaasi ka dhashay dagaalka, hase ahaatee waxay wararka qaar ay sheegayaan in markaasi uu jiro khasaare xoogan oo soo gaaray labada dhinac. dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubnaha mucaaradka ay berito ay doonayeen inay ku qabtaan banaanbax weyn uga soo horjeedaan magaalada caasimadda ee muqdisho ama dowladda federaalk soomaaliya. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka, hase ahaatee mucaaradka ayaa waxay markaasi ay doonayaan inay ka dhammaadaan yoolkooda inay markaasi ku qabtaan banaanbax weyn ay kaga soo horjeedaan magaalada caasimadda ee muqdisho ama markaasi dowladda federaalk soomaaliya. lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan, hase ahaatee weli xabad ayaa ka socota gudaha magaaladaasi iyadoo ay halkaas isku hor fadhiyaan ciidamo taabacsan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo markaasi dowladda federaalk soomaaliya. haddaba waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeena daba ayaad ku daawan doontaan.